أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله الذي أطعمني وجعلني من المسلمين. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة الإيمان. أولا الحمد لله رب العالمين. وولاشين أدونتي إلهي سهر يوكي سهر محمد سهر يوكي صباح الخير صباح وناكسن ما أنت أمالين ثلاثة بعد السلام أيام ما شاء الله تبارك الله وحروانا هذه كجفة إيديو ما دام ما أنت دليفري داي دياري هاي أنت عن بوستو ما أنت دوري آذن إن شاء الله بإذن الله الكريم أدو إلهي قدره وحايدين شيغايا وحيابها أنت إذن كوهايا سيدين كان أبو فائدة ستين أنا إيجد عيسين إن شاء الله suumankaas waa suumankaa idiin sheegayay waa caloosha iyo garbaha iyo korka inta koroo dhan maasha allah jabiibuu ka dhigaa idin lahaa gabdhaha dalbadeen bokiska ma furin hal xabaa kasoo saara xagga idiin saaran raali ahaada waana hargabsanahay hawada isbedelaysa qabow waa iska jiro marka maasha allah tabaarakallah daawooyinkan intooda badan waa taqaaniin aan dhihi karaa ama waa igu aragteen laakiin intaadan igu arkin sida kuwan oo kaleete kuwan waa aragteen waa shaahiyada u fiican fertility womanka kan waa kuwa u fiican gacanta diyaariyo ama maxay ahayd sameeyo qoyaanka ilaha keena uurka lagu yeesho kan waa fertility support conceive plus kaas waa ashwagandha kan waa kii thyroidka kan waa kii hurida Vitex-ka kan waa kii Vitex-ka hore u aragteen laakiin kan inuu idinku cusub yahay macquul ah waxa uu rooyahay isagana sidoo kale caadada ilaahay horta caadada saxo maanta caadada miiska saaran saa aragtiin oo ujeedin laba box oo Vitex goojo ah iyo Vitex kaniin ah isugu jiro shaahiga waxa ku qoran in aragtiin oo maleenaya da soo dhawaysatiin waa arki kartiin fertility and pregnancy tea ilaha uurka bixiyo subxaanahu wa tacaala laakiin ilaahay waanu faray inaan dadaalno inaan isku dadaalno kan sidoo kale isagana waa shaa caafimaad fiican u leh women ku qoran kaas waa kaniinkii pregnancy care-ka ahaa intaas aad aragtaan oo kaleete waa kasaafa maanta kasaafa dilan intaana ujeedina waa intii tuubooyinka lagu furaayo ilaahay tuubooyinka gabdhaha u furo ilaahay idinkiisa wixii ilaahay qora waa imaanayaan laakiin in la isku dadaalo waaye gabar tuubooyina la isoo falaasho dhahayso tuubooyinka marka la soo falaasho kadib la dhahay wax furmaayo malaba waxaan tissue kugu dhagan ama dilanka badana ku dhacay alxamdulilaahi rabbil caalamiin haddana maasha allah noqotay wani feedbackiina aada u jeclahay gabdhihii wiigaanetay saddexda gabdhood oo uurka yeesheen waxaan jeclahay ilaaha u yeelay saare adoontii ilaahay waaye daciifadan waxay awood leedahay ma jirto dadaal waa gaaraysiinay taagan tahay qofkii dadaalaa wuu gaaraa insha allah hala isku dadaalo waxaa ku dadaalaysiin hadday tahay dhinaca fitamiinka dhinaca nafaqada raashinkoo la iska bedelo waxyaabihiiba jirkiina u daran oo dhan oo idin dhaha iska joojiya gabdhaha sida qaaska oo la shaqeeyo guruubyadii farihi ay ka bateen maasha allah waxaan idinka codsanaa daawada markaa qaadanaysiin cunto daawada ku habboon inaad qaadatiin soomaali lema ihiyo bariisi basta lema cunayo erigaasaa iga soo go-ay aniga sida adduunka u dhibsaday keligiina soomaali matiin anaga dhanaa wada soomaali ah soomaalinimadana ku faano laakiin waxaa loo baahan yahay wixii jirkaada iyo nafaqadaada iyo caafimaadkaada u roon inaad ku dadaashid insha allah biidnillaahi alkariim mar labaad iyo mar saddexaad waxaa idinku celcelinaa nafteyda iyo naftiinaba idinkala dardaarmaa raashinka caafimaad darrada idiin keenayo ama gacantiina hoos u dhigaayo ama markaad uurka isku diyaarinaysiin aad qaadanaysiin especially inaad ka fiirsatiin testiyadaasna waa test maasha allah from USA waaye oo jeedin pregnancy test waaye gabadha haddii 2 weeks xitaa ay uur leedahay uu sheegayo first test la dhahaa ilaahay idin kaso abaayona u dalba u diri doonaa meeshaan waa maxaa la dhahaa sumbostooyinka u fiicnaa waaye
cuncunka ama infectionka ama caabuqa qof walba